dadka xanuunka macaanka qaba diabetes maxay ahayd aan garanayn cunooyinka u fiican xanuunka ee lagula tacaalo ayuu videoganu gaar u yahay. marka maanta waxaanu ka hadlaynaa maxaa ka mid ah cuntooyinka u fiican xanuunka macaanka. soo dadka xiiseynaya mawduuca fadlan aad buu muhiim u yahay. kolleyba cid xanuunkaa qabta waad garanaysaa ama familiga way ku jirtaa. soo si aad u anfacdo insha allah macluumaadka ugu anfacdo fadlan ka faa'iidayso videogan oo nala sii daawo. Welcome everyone to Asiya's TV show. cuntooyinka aynu heli karayno ama qof kasta meeshuu joogo wuxuu ka heli karayo maxaa ka mid ah ee macaanka uu kula tacaali kara ama ka caawinaya inaanay xanuunkii kusii siyaadin. taa weeyaan taynu insha allah maanta ka hadlayno qaybihii hore ee videogan ku noqda fadlan dadkii aan daawanin. laba video bay ahaayeen, labadaaba xagga dambe insha allah waa idiin soo dhigi doona biidnillah. kanaan ku dabada ugu xidhaya si dadkii aan daawan iyo dadka cusub insha allah qaybahana usoo daawadaan. waayahay guys, haddaan soo yaro koobo gaar ahaan dadka cusub usoo koobo, dadkii horena yacni u yaro dulmaro xasuusiyo macaanku siduu u shaqeeyo waan idiin sheegay videoyadii hore. waxa weeyaan jirkeennii oo macaankii ka farabatay. okay, qiyaastii loogu talagalay uu ka farabatay uu fatahay. waa sidii koobad biyo ku shubayso, koobka intuu buuxsamay waad ku wadidun ku shubaysidun maanta oo dhan haddaad ku shubaysid maxaa dhacaya? wuu qubanayaa unda wuu qubanaya wuu buuxa. okay, markaad ka dayso ku shubidii killigii aad ka qabato maxaa dhacaya? koobkii halka ugu sarreysu taagnaanaya wuu buuxaa. okay, wax dambaanad kusii kordhinayn. markaana maxaa la bilaabaya? waxaa la bilaabaya koobkaa buuxa waxaa buuxiya in la dhimo oo laga yareeyo. sonkortuna waa sidaa, koobkii waa jirhkaagan, macaankiina waa ka buuxinaya. soo haddaad afkii markasta ka cunayso waxa weeyaan adigiyo jirhkaagii uu sii fatihinaya oo kasii farabadinaya macaanka. mar allaale markaad joojiso cunooyinka macaanka kiciyo oo dhan jirhkii intii ku jirtay ayaad ku qabanaysaa. wixii ka dambeeyana waxaad samaynaysaa intaa ku jirta inaad yarayso. okay, saad u yarayn lahayd weeyaan haddaba videogan nuxurkiisu insha allah. mid kale aan idin yaro xasuusinayo waxa weeyaan guys, iyo dadka aan kuwii hore aan daawanin, jirhkeena markaynu macaan cunno ama wax macaan isu bedelaysa carbohydrateska oo kale, daqiiqda, bariiska, baastada, baradhada, waxaasoo dhan jirhkeenu maskaxdiiba fariin u diraysa pancreaska oo odhanaysa jirhkii waxa soo galay macaan, insuliin baa loo baahan yahay. insuliinku waa gaadhiga dhiigga. soo wax kastoo aynu cunno dhiiggu ma qaado. haddaba insuliintu waxa weeye waa aaladda dhiigga ka dhex saaraysa sonkorta. soo dhiiggii intay ka reebto sonkortii ayay sonkortii geynaysa meesha ilaahay ugu talagalay inay ka baxdo oo ah unugyo sonkortu ka baxdo. unugyadaasay u geynaysa, unugyadaasa saara. haddaba markii macaanku dhiiggii kusoo noqdo uu dhiiggii ka bixi waayo waa markay unugyadiina buuxsameen ay fataheen. sabulaacadii markay buuxsanto maaragtay soo tufto waxa ku jiro oo dhan unugyadii way buuxsameen, wax dambe oo ay qaadi karayaan ay saari karayaan ma jirto. markaa sonkortii waxay ku meeraalaysanuun dhiiggii. okay, waa marka la leeyahay macaan buu qofkii qaaday. alright, soo sheekadii hore oo koobani waa taa. okay, maxayna looga baahan yahay haddaba inaynu sameyno markay halkaa sheekadu marayso? waxa weeyaan inaad number 1 step inaad joojiso, si dhammaystiran u wada joojiso wax allaale wixii macaanka kiciya. sonkor, wax allaale wixii sonkori ku jirto, wax allaale wixii ka samaysan daqiiq cad, bariis, baastada weliba bariiska waanu usoo noqon doonaaye, baradhada, everything macaan isu bedelay. fruitska, khudradda macaan qayb weyn ayaa sonkor isu bedesha. okay, muuskaa ka mid a, xabxabkaa ka mid a, babaygaa ka mid a, maangaha ka mid a, waxaasoo dhan macaan bay noqonayaan. waayahay, so step number 1 maxay tahay? wax kasta waad joojinaysa oo aad cuni jirto macaanka kiciya. alright, step number 2 waxay noqonaysaa cunooyinkii aad joojiso dhan waxaad ku bedeli lahayd. okay, so waxaasoo dhan markaad joojiso maxaad ku bedelaysaa? quraac, qado iyo casho kuu noqonaya. okay, qof kasta isagoo ku xisaabtamay meeshuu adduunka ka joogo waxa available ah ee laga helayo ayaad ku xisaabtamaysaa.
because wax kasta lagama helayo halkan waddanka oo kale laakiin it's not so bad wax fara badan oo qofka macaanka qabo uu si fiican ugu noolaan karo waa laga helaa hadda waddanka insha allahna waan idiin sheegi doonaa so step number 2 cunooyinkii la cunayay okay cunooyinkaas quraacdii bed alright beedku ma kiciyo dadka macaanka qabana aad buu ugu fiican yahay waana nafaqo miran because masha Allah vitamins fara badan ayaa ku jira qofkii nafaqo badan oo caawinaysa jirka qofkii xanuunsanayo qof kastaba so subaxii bed guys beedka waxaad ku darsanaysaan horaan idinku sheegay avocado dacal ka saaranaysaan dadka waddanka jooga laxooxeed iyo budo ka samaysan dadka dabadaha jooga whole wheatkii brownka ahaa waxyaabaha subaxii waad kaga bixi kartaa shaahaagii oo bilaa sonkora koofigaagii bilaa sonkora it's fine qadadaadii gaas waxaad u bedelanaysaan un cuntadii khudradda dheriga vegetables-ka la yidhaahdo vegetables-ka guys aad isugu dadaala nooc kastoo aad heli kartaan okay ku darsada xisaabta lacagtii idinkaga baxaysay waxyaabihii macaanka kicinayeen unbaad ku bedelaysaan okay waa qof iyo siduu cunto kariska u yaqaano inkastoo ay fiican tahay khudradda iyo vegetables-ka inaan dabka lagu dilin because dabka haddii in badan ay saarnaadaan nafaqadii way ka dhamaatay okay ama waa la yara fixfixiya oo ama waa la steam garaya yani in yar unbaa dabka la saara waa lagu yara rogrogaa that's it because uma baahna waxaa soo daba okay khudradaha nooc kasta guys waa la qaadan karay vegetables-ka ilama aha wax macaan kiciya ku jira يعني kuwa standardka ah la wada yaqaano khudradaha cruciferous-ka la yiraahdo cruciferous vegetables koodhan way fiican yihiin sawiradooda waan idin soo dhigdhigay halkan cabbage-ku number 1 ka yahay aad buu fiican yahay guys cabbage-ki xitaa subaxii quraacdaadii waad ku darsan kartaa beedkii xoogaa yar waad isku samaysan kartaa qadadii guys waxaad samaysanaysaa wax alaale waxaad khudrad helaysaan oo aan dabka lagu dilin waxaa idiin soo raacaya hilibka kalluunka digaaga intuba waa okay macaan ma kicinayaan okay sidaad u samaysanaysidna waad ka fiirsanaysaa okay cuntada markaad samaysanaysid mid kaloo aad hawada ka saarayso aan shaqo dambe ku darsanayn waxa weeyaan saliidaha cadcad cholesterolka xun keena beer subagaad aad u taqaaniin dhibaatooyinka caafimaadka ku keeno oo dhan waad ka baxaysaan saliidaad ku samaysanaysaan cuntada waxay noqonaysaa butter zubda carabiga saafiya subag sixino saafiya waa okay baridu waa okay olive oil saliid saytuuntu waa okay sesame oil macsartu waa okay avocado oil coconut oil coconut waad garanaysaa qumbaha waxaa saliidahaas oo dhan iyo qaar kale fara badan oo soo raaca guys waa healthy okay kuwaas oo dabiiciya ayaad ku bedelaysaan qof iyo wuxuu heli karayo maxaan variety iyo noocyada u badan iyo sheegidooda qof iyo waxaad heli kartid si aan comment-ka loogu soo qorin noocee baan isticmaalaa miyaan wada isticmaalaa intaa xabadaad heli karto kala bax labadaad heli karto ama saddexdaad heli karto kala bax isku bedbedel okay soo qadadiina maxay noqonaysaa guys hilibyadii digaagii kalluunkii oo khudradeedii raacsan tahay maraqii aad buu fiican yahay hilibka ama lafaha laga saarayay ee collagen-ta watay collagen-tii halkaa aad bay muhiim u tahay dadka macaanka qaba because dadka macaanka qaba xanuunku wuxuu cunaa muscleskoodii muruqoodii oo dhan buu cunaa qofkii wuxuu noqdaa harag iyo laf okay so collagen-tiina in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay okay maxay ahaydeen waxaa guys timi wixii cashadii la cuni lahaa okay cashadii mirayaashii markay noqoto wixii miro ah sida digirta beans oo dhan yani noocyadiisa kala duwan ee fara badan taa dhakhtaradu jawaabo kala yara duwan bay ka bixiyeen laakiin majority waxaa la isku raacay kuwaas haddaanad qiyaas ku qaadan digirta haddaynu tusaale ka dhigano red kidney beanska la yidhaahdo qiyaas baa lagu qaataa oo aan badnayn because haddaad qiyaasteeda ka badiso macaankii way kicinaysaa oo insulin kaxaysa ayay u baahanaysaa okay so comment-kana hore waa laygu soo weydiiyey digirta ka waran marka guys
qiyaas baa la raba wixii beans inaad ku qaadataan imika beanska oo kale digirta oo kale in yar haddii la faxfaxiyo okay waxa lagu darsan karaya khudradaha saladka okay because qofkii wuxuu heli karaya guys hadduu qadadii helayo maraqa iyo in yaro hilibayo in yaro khudrada oo uu ku cuno laxoox ama roodhi yaro browna oo hay'adii ka samaysan garowiyo cashadiina wuxuu cuni karaya xoogaa yaro salad oo khudrada isku googoostay in yaro digir aad faxfaxisay ayaad ku daadsan karaysa si ay u culays u noqoto yani wax caloosha kuu tiiriya oo aad ku dhergi karaysid marka idinkii waa inaad xirfadaha guys kala bedbedelka khudradii idinku meeshii aad keentaan oo aad ku dadaashaan okay laakiin cuntooyinka khudradda vegetablesku wax allaale wax insuliina uma baahanayaan oo kaxeeya يعني هذا أنتم ما أنتم عنيسد spinach يو عقار يو سلر يو cucumber يو خيار يو واحد كستسكوتر سنة يسود عنيسد زوكيني محوها eggplant محل هذا eggplant محل ونجري سبحان الله anyways صور كان كسر كل ما نحسوسه بدنجال عربي بدنجال سومالي ما قرنايو أبو في عنها يجاز okay waxyaabahaas oo dhan siyaabo kala duwan u samsamaysta maalin kasta oo idinkii ku dadaal insha Allah marad dubtaan yani wixii intaas ku yara gurtaan ovenka ku yara ridaan intaad ku xawaashidii ku dartaan xawaashidana waynu ka hadli doonaa mar yara faxfaxiya mar in yaro saliid ama subag yar ku yara rogrogo yara maragti milix iyo dhandhanaaniya ma sha Allah tabarakallah qofka aan macaanka qabin baa la rabaa inuu saa wax u cuno guys okay waxaad ku kabkaban kartaan guys marmar haddaad gaajootaan cagaarkaas oo shiidataan yani waxaad shiidan kartaan cayadii waxaad ku darsan kartaan muxuu ahaa baytaraaf yani waxyaabo noocaas okay waxaasoo dhan jirkii horta suntii way ka safaynayaan macaankii soo mu ahan jirkani koob buuxsameeyo fatahay markaynu ka joojinay ku shubidii laga dharginayay suntii so halkiisii muu istaagin markaad cuntooyinkaa bilowday inaad nidaamkaa iyo basarkaa ku cunto koobkii wuxuu bilaabaya inuu isdhimo jirkii wuxuu bilaabaya sonkorta inay ka yaraato okay wixii ka buuxay dhiiggi wuxuu bilaabaya inuu safaysmo dhiiggi markuu safaysmo unugyadii waxay bilaabmayaan inay safaysmaan okay mid kale aad ku xisaabtamaysaano ilaahay jirkeena wax kasta uu ka sameeyo waa unugyo dhiiggu waa unugyo maqaarku waa unugyo organsku waa unugyo wax kasta waa unugyo kastana waan horaan idinku sheegay cimri ay ku dhintaan bay leeyihiin soo xasuuso jirkaagii unugyada xanuunka qabay cimrigooda wuu dhammaan isla markaana unugyo kala dhalan haddaba adigi waxaa lagaa rabaa unugyada cusub ee dhalanaya inaanay xanuunkii qaadin okay kuwana intay safaysmayaane cimrigooduna iska dhammaanayo aad ku jirto mashruuca nafaqayn iyo safayn jirka okay kuwaas xanuunka qaaday markay ku soo wada dhaafaan kuwii cusbaabad caafimaadkoodii ilaashanaysa oo cuntooyinka caafimaadka qabeen macaanka inaad cunaysa markaas xanuunkii halkaas ku tagaya uu baaya laakiin qofku dib uu u qaadi kara hadduu halkii ka sii wado waxa la rabaa xanuunkii markuu qofkii ka bogsado inuu ku wado nidaamka cuntada caafimaadka qabta okay waxyaabaha aad snacks ka dhigan kartaa nusu saace ee aan macaanka kicinayn waxaa kamida lowska okay sida almondka iyo muxuu ahaa kii kale maxaa la oran jiray ka maskaxda u eeg walnutka waxyaabahaas oo dhan iyo qaar kale oo fara badan lowsyada way fiican yihiin guys aad bay ugu fiican yihiin qofka macaanka qaba waxaana ku jira duxda fiican oo aad iyadina u nafaqaynaysa insha Allah jirkii qofka xanuunka qabayo qof kastaba okay so insha Allah hadda waxaynu u gudbaynaa wixii cabitaana ah macaankii iyo kuna kaa caawinaya inaad yarayso jirkii ka safaynaya intii hore ku biirtay waxaa kamida green tea-ga okay iyo cinnamonka waad garanaysaan qorofalka udgoon alqurunful soo lama idhahdo qirfana waa kii kale cinnamonka sawirkiisana halkan aan idiin soo dhigi cinnamonku marka la dhadhamiyo waa macaan haddana subxaan Allah waxaa ku jirta dawada macaanka yaraysa yani macaankii wuu dejinaya wuu yaraynaya okay maxaa la rabaa qofkani markuu mashruucan
bilaabo uu isagii isla tacaaliyo inuu xanuunka iska daweeyo waxa la rabaa ayar inuu uga soo maarmo kiniinkii insuliinta xooga beenta asiinaya ee ku qasbay inay sonkorta khasab jirka kaga saarto waxa la rabaa ayar inuu uga soo maarmayo oo hadhowto jirkii markuu safaysmo qofkii u baahan maayo kiniin uu qaato laakiin muxuu samaynayaa cunooyinkiisaas unbuu wadaya forever abed cabitaanada saasuu maasha allah jirkii jir cusub ku noqonaya okay because haddii la ogyahay haddii kaleba guys jirkeenani si joogto ah ayuu isu cusboonaysiiya laba sannadood gudahoodaba organskaagoo dhan way kala wareegeen laakiin dadka qaar maxay hoos ugu sii socdaan haddii hadday cellskii unugyada isbedelayaan organska cellskay ka samaysan yihiin baa isbedelaya markaa organs cusub ayaa soo baxayaan ujeede because dadkaas maxay hoos ugu sii socdaan xanuunkii ayaa marba u gudbaya unugyadii cusbaaye dhashay okay oo qofkiina afkii ka tacaali maayo isa safayn maayo waxaa laga yaabaa inuu iska cuno uun cuntadaasoo kiniinkana liqo uun iska cuno waxaasoo kiniinka liqo okay marka unugyadii xanuunka qabay way dhiman laakiin intaanay dhiman xanuunkii kuwii cusbaabu kusii haraya haddana saasuun markaasuu xanuunkii qofkii weligii la joogaya okay laakiin markaad ka jarto wixii macaan kicinayay jirkii wuxuu bilaabaya inuu caafimaad isagii iskala guro ee adigii waxaa lagaa rabaa un afka inaad ka caawiso oo aad siisid waxa laala wixii nafaqaynaya cuntooyinka adoo ku dadaalaya guys cabitaanadaasina waa muhiim inaad ku kabtaan okay oo maalintii 2 ama 3 koob green tea iyo 3 waqti kala cabtid cinnamon tea ilaa 2 jeer maalintii cabtid biyuun baad karkarsanaysaa in yaroo qorofal aad ku darsanaysaa haddaad doonto xabad dhagayra ana waad tumaysaa waad ku dari xabad heela u dhaafi maysid yacni ku dari maysid sonkor iyo caleen shaah iyo waxa uma baahnayd haddaad doonto biyo kulul in sinjibiila iyo liin dhanaan taasoo kale subaxii bay fiicantahay safrad in lagu qaato okay cabitaanada noocaas oo dhani aad bay u fiican yihiin waana soo wada qaar fara badan because way badan yihiin laakiin bal halkaa ka bilaaba guys I don't want to overwhelm you يعني idinka fara badiyo macluumaadka oo wax isku yaacaad fahmi weydaan ma rabo soo cabitaanadana ku yara kabkaba biyo lindhanaan leh biyo cad oo lindhanaan yar lagu tuujiyey biyo kululo sinjibiil iyo lindhanaan leh green tea qorofalka iyo xawaashida biyaha kulul lagu darsaday waxaasoo dhan waad cabbi kartaan maalintii oo dhan xilli kasta macaankana way dejinayaan jirkana way safaynayaan okay Allahu musta'an waxa la rabaa inaad ku dartaan oo kale guys vitaminada iyo afka laga qaadanayo okay because cuntadii marnaba isu dhameystirnaan mayso qofka laakiin muhiim waxa ah vitaminska waxaad ka qaadataa waxaad isleedahay jirkaagii wuu ku yar yahay isa soo baar soo ogaada midaad qaadan kartaan bilaa dhakhtar aad idinku isu qori kartaan waa vitamin C vitamin C da waxa la rabo qof xanuunsanaya qof caafimaad qababa inuu maalin kasta qaato oo ah forever abed daily waa loo baahan yahay vitamin C okay so vitamin C baad ka bilaabi kartaan iyo vitamin D3 dadka dhaxamaha jooga afka ka qaataan dadka wadanka jooga 20 minutes 30 minutes cadceedu markay qabowdaha isu dhigaan iyakoo ka hor xabada avocado ah soo cunay insha Allah way labadaas wada shaqaynaya cadceeda iyo duxda markay ishelaan chemical reaction baa dhacaya waxa ka dhex dhalanaya vitamin D3 kana kaligi vitamin D3 noqon maayo cadceeduna kaligeed vitamin D3 noqon mayso waa inay labadaas ishelaan si uu uga dhex abuurmo arrinkaas saddexaad ee ah dhiigga cad ama vitamin D3 oo difaaci jirkaaga dhisaya oo ka caawinaya waxaan xanuuna inaad iska saarto okay taa markaad fahamtaan mid kale oo muhiim ah ku dareysaan oo horena idinku sheegay waxa weeyaan guys xilliyadaad wax cunaysaan ha ahaadeen 8 saacadood gudaheeda waayo jirku markuu ka qatanaado cuntada 16 saacadood oo isugu daba qabada wuxuu sameeyaa isa safayn fara badan unugyo caafimaad qabo cusub baa dhalanaya kuwii hor soo dhaafinaya dhimanaya waxaan ku door weyn ayuu ka ciyaaraya kaasi
waxaana la ogaaday guys oo macaanka dawadiisa number 1 ka ah waxay noqotay soonka. Okay, soonkii ajarka lahaayee islaamka ha noqdo ama soonkii uun aad wax cabayseed cuntadun ka yara soomaysay 16 saacadood oo isugu dabaqabada ha ahaado, labaduba dawada number 1 baabi'isa macaan weeyaan. Okay, so nidaamka cusub haddaad ku noolaataan wajiga cusub u samaysaan noloshiina khasab macaanku hawadu ka baxaya. isweydiin ma laha guys, tijaabiya oo ka warkeena insha Allah. vitaminska cuntadii aad bedesheen, cabitaanadii aad bedesheen, xilliyada wax cunayseen aad bedesheen, idinkoo ku daraya waxyaabaha dheeraadka ah ee ah jimicsigii, hurdadii habeenkii goor hore la seexanayo, because habeenkii goor hore marka la seexdo jirkii markaasuu gebigiisuba dhalaa wax alaale wixii cusub ee loo baahan yahay. hormoneskii baa shaqaynaya, unugyadii baa dhalanaya, wax kasta inta la hurdo ayuu ilaahay ugu talagalay inuu jirku aad isu cusboonaysiyo oo is anfaco keligii, aad waxba qaban maysid. Okay, wajacalna leyla libaasa, ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ayuu noogu sheegay. waxa weeyaan maaha un libaas un nasasho un maaha, xikmad baa ku jirta nasashada, jirka dhan ayaa is cusboonaysiinaya. Okay, wadada imkaan idin sheegay dee lasoo ogaaday, lasoo xaqiijiyey in macaanka lagu daweeyo xanuuno fara badan oo kalena waa lagu daweeya guys. Okay, marka waxaa la rabaa un qofku inuu noloshiisii dhammayd bedelo oo uu sidan u noolaado. marka khasab natiijo wuu kala kulmaya wadadan cusub oo cagta saaray insha Allah. waan idin sheegay waxyaabo fara badan oo kale macaanka dajiya oo cabitaano ah insha Allah waan soo wadna. وانا راعين كريم فيديوغا حدا فو ديراني دربا 20 minutes بو إلا دافي. Okay, so إن شاء الله انتا سندين كديني مانتا كفائديسي في عن إن شاء الله. كور كينا وضدا guys إن شاء الله. كنين كان مركا داركتاني سلا سعودة حالة معان كينا آير وصوت شرا هداد مالنتي لبقى عدنيسي مركا داركتان معان كينو سوداقي ميد كرديك هداد دونتي هدو شاب كرديك هداد دونتي مالين دافو قادو آذا قعنتي سوغو هيا. اوكي معاك هاجينا ست شوكتا وعبر قلن هوري قلن دنبه بإذن الله تعالى. so إن شاء الله إلى أي فيديو قدنبه كل مينو. thank you for your time. مع السلامة.